dagaalka Suudaan ayaa galay maalintii 101 waxaana wali xal loo leeyahay in la damiyo colaadan burburisay mid ka mid ah dalalka ugu weyn waqooyiga Afrika. dhowr jeer ayuu fashil ku yimid shirar toos ah iyo kuwa aan toos ahayn oo ay yeesheen dhinacyada dagaalamaya ee ciidamada militariga iyo kuwa gurmadka degdega ee magacooda loo soo gaabiyo RSF. dagaalka ayaa waxaa intiisa badan uu ka socda caasimadda Khartoum halkaas oo noqotay xudunta dagaalka dalka Suudaan. dilal aan loo kala aabayeelin ayaa soo gaaray rayidka dhaawaca iyo qaxa ayaa bishii afraad galay walina dadka reer Suudaan rajo dagaalkan uu ku soo afjarmayo uma muuqato. maalin kasta iyo saacad kasta dadka Suudaan waxay sugayaan dagaal dhiig badan ku daata waxaana xiran dhammaan kaabayaasha muhiimka sida goobaha caafimaadka, waxbarashada iyo goobaha ganacsiga. dagaalka ayaa waxa kale oo ka abuurmay in dadka rayidka la ugaarsado oo qaab qabiil loo ugaarsado waxa aan si aan kala sooc lahayn loo bililqaystay goobaha ganacsiga ee dalka oo dhan waxaana la boobay hantida dadweynaha. waxaa dalka ka abuurmay kooxo hubeysan oo caloosha shaqaystayaal ah. kasakow boobka iyo bililqada hantida dadweynaha waxaa la afduubtay dadka rayidka sida haweenka oo qaar ka mid ah la kufsaday, sida caruurta ayaa la afduubtay dabadeedna dagaalka ayaa laga qayb galiyay sida ay sheegayaan goobjoogayaasha iyo hay'adaha caalamiga. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in labada dhinac uu dagaal culus shalay ku dhaxmaray xarunta ugu weyn booliiska dalka Suudaan ee ku taala magaalada Khartoum. ciidanka RSF war ay soo saareen waxay ku sheegeen in si buuxda ay ula wareegeen goobtan ayna gacanta ku dhigeen hub badan, laakiin ma jiro ila madax bannaan oo xaqiijin kara iyadoo dhinaca militariga uusan wax war ah ka soo bixin. dagaalka Khartoum ka sokow dagaal kale ayaa iyana waxay ka socdaan dalka oo dhan. waxaa ka mid ah gobolka dagaaladu ay daashadeen ee Darfur, qaybo ka mid ah gobolada Kordofan iyo Naylka buluuga ah. haddaba maxaa ilaa hadda la qabtay oo ku saabsan in dagaaladan lagu soo afjaro? bishii May ee la soo dhaafay labada dhinac ee dagaalamay waxay ku heshiiyeen in ergooyin kala matala ay u diraan magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya si ay u bilaabaan wadahadallo ay dhexdhexaadinayaan Riyadh iyo Washington. ugu yaraan 16 heshiis oo lagu doonayo in xabad joojin lagu gaaro colaadda ayaa burburtay tan iyo markii shirarkaasi ay bilowdeen. marka laga yimaado shirarka Sacuudiga, midowga Afrika ayaa qaban qaabiyay shirar u dhaxeeya dhinacyada dagaalamaya waxaana ay markan ku soo dareen dadka rayidka oo ay u arkaan in ay door ku yeelan karaan daminta colaadda. shirarkan oo 3 jeer dhacay laga soo bilaabo bishii Juun ma jirto wax natiijo ah oo ka soo baxay. kadib waxaa arrintan soo dhaxgalay urur goboleedka IGAD oo ka kooban 8 wadan oo ku yaala geeska Afrika. dalalkan ayaa sameeyay guddi afar geesood ah oo ay ku jiraan dalalka Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo Koonfurta Suudaan si ay wax uga qabtaan dhibaatada Suudaan. laakiin shir IGAD ay yeesheen 10kii Juulaay ee la soo dhaafay waxaa qaadacay dhinaca ciidamada militariga ee uu hogaamiyo Generaal Abdul Fattah al-Burhan kuwaas oo ku eedeeyay dalalkan inaysan dhexdhexaad ka ahayn colaadda. taas beddelkeeda ciidamada militariga Suudaan waxay soo dhaweeyeen shir madaxeedkii lagu qabtay caasimadda Masar ee Qaahira Juulaay 13keedii waxaana gudoominayay madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi oo xiriir wanaagsan la leh generaalka ugu sarreeya ciidamada dalka Suudaan al-Burhan. kulankaas waxaa ka soo qayb galay hogaamiyaal 7 wadan oo daris la ah Suudaan, xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta iyo gudoomiyaha midowga Afrika. madaxweynaha Masar ayaa soo bandhigay hindise lagu dhisayo xabad joojin waarta iyo in la sameeyo wadooyin ay maraan gargaarka bini'aadanimo ee lagu talagalay dadka rayidka ee wadanka Suudaan iyo in la dhiso hannaan lagu wada hadalsiinayo dhammaan dhinacyada siyaasadda dalka Suudaan. madaxda kulanka joogay ayaa isku raacay in la sameeyo qorshe heer wasiir oo ka kooban wasiirada arrimaha dibadda 7 wadan ee urur goboleedka IGAD iyo ururka jaamacadda Carabta si loo xalliyo khilaafka taagan. qorshahan ayaa waxaa bogaadiyay labada dhinac waa ciidamada militariga iyo RSF. tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday dalka Suudaan 15kii bishii Abriil ugu yaraan 3,000 oo qof ayaa la dilay sida maamulka caafimaadku ay sheegeen. ilaa 2.6 milyan oo qof
ayaa ku barakacay gudaha dalka, halka in ka badan 750,000 ay u gudbeen dalalka dariska sida ay muujinayaan tirakoobyada ururka caalamiga ee socdaalka IOM. dhinaca kale, dagaalka dalka Suudaan waxa uu saameyn ku yeeshay kaabayaasha caafimaadka marka la eego xaaladda caafimaad ee dalka. ururka dhakhaatiirta Suudaan ayaa sheegay Axaddii shalay in 70% isbitaalada ku yaala goobaha lagu dagaalamayo ee magaalada Khartoum iyo gobollada kale ay shaqada joojiyeen. ururka ayaa war uu soo saaray intaa ku daray 62 isbitaal in ay shaqaale la'aan yihiin, 27 isbitaalna ay si buuxda u shaqayn amaba ay qayb shaqaynayaan uun. warbixinta uu soo saaray ururka dhakhaatiirta dalka Suudaan ayaa intaa lagu daray in isbitaalada hadda shaqeeya ay halis ugu jiraan inay xirmaan sababo la xiriira shaqaalaha caafimaadka oo ku yar, agabka caafimaadka iyo isku xirka biyaha iyo korontada oo dhammaan ah gabaabsi. 19 isbitaal ayaa la duqeeyey ayaa lagu yiri warbixinta ay soo saareen ururka dhakhaatiirta caafimaadka ee dalka Suudaan. Suudaan lama oga xilliga dagaalka sokeeye ee ka bilowday uu soo dhammaanayo, laakiin waxaanu rajaynaynaa dalkan oo dad badan oo Soomaali ah soo gacan qabtay, waliba arday badan ay wax ku soo barteen, in colaadan uu Alle ka dhameeyo oo ay dib ugu soo noqdaan nabadii lagu yaqaanay dadka Suudaan. waxaan leenahay Suudaan nabad waarta, Allah idin siiyo.